doorashada madaxweynaha goorma la gelaya goorma diyaar garooba erag kala diyaar garoobe markaas saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururada cararaya madaxweyne doonaya ma dhici karta inay ururado urura sameeya madaxweyne gudoomiyaha dib u sugaa kontareeska sharciga ma raxiim marka hore wada xabriyeenna saddexdii xubnood ee maanta hore la reebay waa qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhiday ay gacanta siisay waa si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo howlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka waxaa idin hor yaalla hawl culus wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lalahaa ayaa jid bixinaya dadkao dhan xalay maanta waxay ku seexdeen waxaa jid bixinaya komishankii baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas waa idin taalla kolkaa qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhanayay labadiiba idinka hor yeelaan imanka oo idinku soo wareegeen mas-uuliyaddooda marka waxaa idin yeela horta marka hore waxaynu waay aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaatee hadda wad socdan waa hore maxaa inoo xeera markaa horta xeer samaysta laakiin markay qariya qari tagto haddii reference ba la waayo way safgaran waayaan taa ka digtoonaada oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u dana samaysta laba hawlihiinni waa gudagelaysa waxa u horeeya laydinka sugayaa oo anaan ka sugayaa iminka doorashada madaxweynaha goorma la gelaya goormaa diyaar garooba erag kala diyaar garoobe qaranku waa intaas isku haystaa dusheena taala hawsha hadda ka gutaan waxaa soo harhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo wakti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walba naga kulan waa mar olo lagu jiro oo dadku culoobayo marka lasoo baxana dadkii baa la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga buso la buuqayo oo dhaqaale yaraa ee ay taaggeena yar aynu wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa markaasaynu isku arbushmayna cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda afaqasta way barteen odayga arkaya ingiriiska saddex sano afar sano mid baa la bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan sitan dhaqaalena way u hayaan dadkuna way u tababaran inagu dhaqaalo u hayno doorashooyinku way hawl badan yihin aad bay dalka dhiigbaxa ugu yihin waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culoonaa doorashada kambeynka yar si fool xum inagu culoona hataa wakti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kala galama hayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorasho hore tallaabo wanaagsan bay wixii hadhana waa la isku geegeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqan jira laba doorasho iyada duniyaa loo qaadaysa mid waa tii xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartan baa madaxweynaha la dooranaya ururada cararaya madaxweyne doonaya ma dhici karta inay ururado urura sameeya madaxweyne gudoomiyaha dib u sugaa kontareeska sharciga ma diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa markaa waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka o dhan socoto shaqaalo aan u samayno gobollada la geeyo aydin hoos timaado oo si joogtaa u maamushaa iminka maxaa dhaca commissionka markay doorasha cadiis damba iska nastaa waa farida 2-3 years baan hawl badan qaban commissionka markaa waxay ahayd inaad samaysaan ofisyaal ilaa districtyada taga oo shaqaalihiina oo dhaatadiina ururiya
oo protective ah security daataduna ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara laakiin mar qura loo diiwaangelinta ha galo waa 8 milyan dollar 8 milyan baa ku baxay 7 milyan haddana doorashadii baa loo hala galo waa 7 milyan oo 14 milyan waa security iyo baybarka waraqa laga shaqeeyay inta idinku baahantiin inta in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dadana weyn oo waxba hayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxa la idinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeyn idinkoo waay arag u lahayn badan cilmiga tan meel badan inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeyaa positive-kooda loo qaata markaase waxaanoo buuqi naga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid uun marka la galayo waa dagaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waaba routine bini aadmuna dee wuxuu qaataa waay arag oo ka baxa ay hob ina taa xalisaan soo daa inoo heshaan fishan ka dheereeyataan anu wada la shaqeynaa gacan buuxda naga helisa hawlaha wixii fudeynaya waxayna intaa waayeen intaa ay wada shaqeyn wanaagsan dhammaantii soo dhawaada dee idinku waa la sugaya imika qaranku idinku sugaya kolkaasaa expectation badan baa la kala siinaya iyadoo taagtii looga allah idiin sahlo marka anigu se waan ogaado waa idinla garab gelaya waa mahadsantii